السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان صاحبة قيمة بدن يكوحرن يوتيوب channel كان عدو تيج كسو دباد موقال كان مانتا رونانتي موقال كان وحايقا سو عدسدي صاحبة كمدا ولي بصاحب كاسو آتي وخالية وحايقا سو عدسدي سيدا لو سميو ID card رونانتي ورتي ID card لابا خاب ايا لو سميا ميد waa landscape ميد يعني waa portrait qaab joog ah iyo sidoo kale qaab jiif ah maanta waxaan baran doonaa sida loo sameeyo ID card-ka qaab joog ah ama loo yaqaan portrait ID card-ka yani waa inta badan mid kale adeegsado ID card-ka aan isla sameyn doonan waa noocan dhammaan inta jecel barashada xirfadda graphic design-ka inay ka faa'iideysan doonaan ayaan rajaynayaa fadlan si aan u gaarno 5k subscribers haddii aadan weli channel-ka subscribe inoo saar haddii aad horey noola jirteen waad ku mahadsan tahay oo muuqaalkan oo like garee mahadsanid ugu horeen waxaan soo furan doonaa application-ka Pixlab si aan u sameeyno ID card-ka aad soo aragteen markaynu soo galno cancel ayaan iska dooran doonaa qoraalkan ayaan iska delete gareyn doonaa kadibna waxaan tagi doonaa bartaan ay ku qoran tahay saddexda dhibcood marka saddexda dhibcood doorto kadib waxaan dooran doonaa image size ayaan soo dooranayaa oo cabirka ID card-ka ayaan ka dhigan doonaa halkaan width waxaan ka dhigan doonaa 54 dhankani kalan waxaan ka dhigan doonaa 87 oo height-kii ah yani jooga iyo balaca waa oo ID card-ka yeelan doono kadibna okay ayaan dhihi doonaa ID card-ka laba dhinac ayuu leeyahay mid waxaa loo yaqaanaa in front midna waa back hadeer in front-ga ayaan isla design garan doonaa ama qaybta hore ee ID card-ka qaybta dambana insha Allah muuqaalka xiga ayaan ka soo sameyn doonaa haddii aad rabtaan oo aad daneynaysaan commentiga ku soo qor waan ka sugeynaa oo noo soo samee cashirkaasi okay markaynu sidaan cabirka u saxno kadib waxay imaanaynaa bartaani color ayaan ka dooranaynaa kadibna qaybta ugu koreysa ee colorka waxaan ka dhigi doonaa cadaan ama white markaynu sidaa ka dhigno kadib waxaan dooran doonaa blastaasi kadibna shapes ayaan dooranaynaa shapes markaynu doorano colorka ayaan ka bedeli doonaa ugu horeen colorkaas ayaan siinayaa kadibna radius bartaan ugu sareysa ee 100 ka dhigi doontaa oo radius aad u yeelaysaa kadibna colorka hadeer ka sii bedel oo colorka cagaarka ayaan siiyay adiga laakiin colorka cagaarka qaybtaan uu kugu jiri doonaa sidaan aad wadaysaa waa ujeedaa coloriskana midka aad rabtid ka xulo aniga hadeer colorkaas cagaarka ayaan doortay kadibna tick ayaan soo dhigi doonaa hadeer size-kiisa ayaan xoogaa weyneynaynaa oo sidaas ayaan soo weyneyn doonaa oo waxaan la ekeysiin doonaa labada dhinacood ayaan la ekeysiinaynaa sidaas oo kale kadibna waxaan sameyn doonaa waxaan tagi doonaa meel ay ku qoran tahay relative position qaybta dhexe ayaad imaanaysaa kadibna labadaasi dhexe ayaad dooranaysaa waxay ku saxi doonaan bartamaha ayay ku dhigi doonaan shape-kii aad soo dooratay kadibna tick ayaad dhihi doontaa waxaad ku dhufan doontaa meeshaan ay dhinacan ka soo jirta ee position kaliya ku qoran kadibna si tartiib ayaad u wadaysaa adigoo dooranaya dhankaani yacni kor ayaad u wadaysaa midkaan hoos ay u wadayaa ee dhinacaani jiro kanna sare ayuu u qaadayaa marka adiga sare ayaa u qaadaysaa sidaas ayaad yeelaysaa oo si aayar ayuu u qaadayaa waa ujeedaa okay waa ku celcelinaysaa ilaa uu meesha aad rabto kaaga gaarayo waa ujeedaa okay hadeer aniga waa wadaa weli ilaa iyo dhankaasi uu ka qariyo cadaankaasi geesaha uu ka qariyo sidaas ayaan wadi doonaa waa ujeedaa sidaas ayaa tartiib ugu kaxeynaysaa hadeer wuxuu inoo taagan yahay bartii aynu rabnay kadibna tick ayaan soo dhahaynaa ama sax sida aa u taqaano kadibna isla midkaan ayaan waxaan ka sameyn doonaa copy kadibna waxaan ka bedeli doonaa colorkii ayaynu ka bedelaynaa colorkiisa waxaan ka dhigan doonaa colorkaasi baluug ah adiga haddii aad rabto gaduud ama noocyadaani kale waad isticmaali kartaa balse aniga baluugaas ayaan ka dhiganayaa haddii aad rabto qaabkaygana kalaradeyda raac kadibna tick ayaad dhihi doontaa waxaan dooranaynaa bartaan ay ku qoran tahay relative position kadibna labada dhexe ayaan dooranayaa si uu cabirka igu saxmo markuu sidaas igu saxmo kadib waxaad dooranaysaa meeshaan ay ku qoran tahay kaliya position kadibna midkaas ayaad dooranaysaa ee hore waxaad geen doontaa sidii hadeer oo kale qaybta sare ayaad u qaadi doontaa okay sare ayaad u qaadaysaa okay waa wadaysaa ilaa uu ka gaaro kor ama qaybta sare haddii aad rabtaan haddii aad xariijintaan yacni ziyaadiso waa ujeedaa si aayar ma ahan si xoog ayuu kor ugu kaci doonaa oo xowli ah marka adiga unbay kugu xiran tahay si tartiib haddii aad rabto ama si xoog ah haddii aad rabtaba hadeer marka anaga sidaas ayaan ka dhigani doonaa oo dhankaasi halkaas ayaan kaga simi doonaa hadeer waxaa inoo saaran laba shape iyo oo kalaradooda kala duwan yihiin oo kala ah kalarka cagaaran
iyo kalarka baluuga kalarka cagaaran kastaas yar bes aan ka rabnaa kalarka baluuga ayaan adeegsanaynaa okay kadib waxaan dooran doonaa balastan ayaan soo dooranayaa kadibna waxaan dooran doonaa shapes oo shape-keyga waxaan ka dhigi doonaa radius ayaan gelinaynaa 100 ayaa ka dhigi doontaa radius-kaaga kadibna kalarkaasi gaduudka ka dooro oo tick soo dheh kadibna shape-kaaga qaybtaan aad dhigi doontaa xoogaa soo yar zoom garee kadibna aad bartaan ay qoran tahay relative position labadaasi dhexe dooro markaad doorato kadib position ayaad imaanaysaa si tartiib ayaad kor ugu wadi doontaa shape-kaaga okay si aad u geyso bartamaha barta aad ka rabto si tartiib ayaan u kaxeynayaa hadeer bartamahaasi qaybta sare ayaan ka rabaa inuu aado oo bartamaha inuu ka taagnaado ayaan ka doonayaa hadeer marka sidaas oo kale ayaan ku rabaa kadibna xoogaa yar ayaan yareynayaa okay ayaan dib u celin doonaa kadibna mar waliba positionka uu ku saxan yahay hadeer waa okay marka yacni shape-kaaga sidaan ka dhigto kadib shape-kaaga asigoo sidaas kugu dooran waxaad tagi doontaa bartaan ay qoran tahay texture kadibna gallery ayaad ka dooranaysaa si aad sawirka ugu soo darto okay sawirkan ayaan soo xulanayaa qaybtani geeska ee 1 to 1 ay ku qoran tahay ayaad dooranaysaa kadibna face-kaas ayaad ku aadinaysaa haddii aad sawirkaani rabto waxaan soo dhigayaa telegram channelkeena telegram channelka waxaad kaga soo biiri kartaa commentiga ugu horeeya linkigaasi raac kadibna waad ka helaysaa wax waliba oo aan u isticmaalay ID card-kaani kadibna tick ayaan soo dhigi doonaa ama sax waa ujeedaa qaabka uu soo galay kadibna waxaan tagi doonaa barta ay ku qoran tahay stroke ayaan furi doonaa okay enabled ayaan ka dhigaynaa kadibna stroke-gaasi baluuga ah ayaan dooranaynaa oo 5 ayaan geen doonaa widthkiisa ama balaciisa waa ujeedaa qaabka uu soo baxay sawirka bartaasi hadeer waxaan ku soo darsani doonaa loogada shirkadda loo sameeyo ID card-ka tusaale ahaan aniga hadeer waxaan soo qaadanayaa loogada shirkadda Hormuud adigana waa ku soo dhigayaa ku design garee oo ku practice garee kadibna waa yareynaysaa qaybtaasi sare ayaa saari doontaa okay waa iska yareynaysaa kaliya loogada waa astaan yacni qofkaan shirkadu u shaqeeyo loogadeed baa loola jeedaa kaliya adiga Somnet soo qaad ama Somtel ama shirkada kale xiligaas yacni sida jaamacadaha oo kale loogooyin ay leeyihiin iskuulaadka intaasi waa loo sameeyaa kadib marka waxaan dooran doonaa balastaasi kadibna shapes ayaan dooranaynaa shape-keen waxaan ka dooran doonaa kalarkaani baluuga ah kadibna tick ayaan dhigi doonaa ama sax kadibna shape-keena sidaas ayaan u yareynaynaa kadibna waa dheereen doonaa qaybta hoose ayaan soo dhiganaynaa oo sidaas ayaan halkaas ugu dhaafi doonaa hadeer waxaa inoo harsan kaliya inaan ku soo darno information-kii loo baahnaa runaantii aniga information-ka inaan mid u qoro waqti dheer ay ugu qaadanaysaa oo muuqaalka ayaa igu dheeraanayo qoraalka wuu ii diyaarsan yahay oo information-ka baast ayaan dhihi doonaa kaliya adigana haddii aad rabto waa ku soo sameynaya qoraalka soo diyaarsan telegram-ka koobiga soo dheh kadibna baasti ku dheh kadibna ka bedel information-kaaga ka bedel kaliya wixii kale qaybtaan ay ku soo gali doonaan okay kadib waxaa imaanaya qaybtaani markaan imaado kadib text ayaan ka dooranayaa waxaan ka dooran doonaa edit kadibna waa tiri doonaa halkaan ayaan waxaan qoraalkayga ku dhihi doonaa bast kadibna okay ayaan soo dhihi doonaa hadeer waa ujeedaa information-kii iyo saxan ayaa halkaas ii soo galay kadibna waxaan dooran doonaa qaybtaani color ayaan soo dooranayaa colorkiisa waxaan ka dhigi doonaa kalarka balaaga ah ama madowga kadibna tick ayaan dhihi doonaa information-kayga sidaas ayaan qaybtaasi dhex ugu aadisanayaa adiga information-ka hadhoodii waad bedeli kartaa kaliya waa ku dhufanaysaa edit ayaad dhehaysaa kadibna waad tiraysaa wixii aad rabtid 2026 oo kale meeshaas 27 ka dhigan kartaa waxa rabtid dhammaan waa bedeli kartaa dhiigaaga noocuu yahay emailkaaga waxaasna waad tirtiri kartaa waa ku bedelan kartaa hadeer 2026 ayaan ku soo ceshanayaa kadibna okay ayaan soo dhahayaa waa aniga information-ka ayaa ii diyaarsanaado kadib waxaan tagi doonaa qaybtaani textiga kadibna qalinkaas ayaan dooranayaa waxaan ku soo qori doonaa magaca oo saddexan ee qofkaasi aniga hadeer waxaan ku qori doonaa magaca oo saddexan kadib waxaan dhihi doonaa Maxamed Xasan ayaan dhihi doonaa okay Maxamed Xasan Cabdullaahi ayaan dhihi doonaa waa soo gaabin doonaa Maxamed Xasan Cabdullaahi kadibna sidaas ayaan soo dhihi doonaa bartaas ayaan soo dhiganayaa qaybtaani color ayaa imaanaya colorkiisana colorka baluuga ayaan ka dhigan doonaa hadeer marka qofkaani shaqadiisa maxay tahay tusaalahan aniga graphic designer ahay shaqadeedu waa graphic design marka sidaa darteed waxaan dhihi doonaa graphic designer okay qoraalka ayaan dooranayaa kadibna yacni okay afwan qoraalkaas ha dooranin kaliya imaaw qaybtaani balasta ama textiga kadibna qalinkaasi dooro graphic designer ku qoraalkaani
اوكي جيدا كوباد وين كدق كدبنا جرافيك عادي وخر ديزاينر ندأ كوباد وين كدق كدبنا انت كل عادي يريسا هذا اوكي كدبنا قيبتا سدحي اياد كو ادين دونتا جرافيك ديزاينر runtii magaca ayaan waxaan ka dhigi doonaa bold sida u taqaanin xarafka b imaaw kadibna b-da ka dooro oo bold ayuu noqonayaa si fiican ayuu soo muuqanayaa ayaa loola jeedaa yacni si fiican ayuu u soo muuqan doonaa haddeer marka waa u jeedaa yacni id nooga waa id kaarka yacni numberka id kaarka balaad waa dhiigga qofku uu leeyahay ab plus mia a plus mia a minus mia o plus mia o minus mia dhiigeedu waa lagu kala duwan yahay marka qofku hadhood informationkiisa asiga ayaa ku sheegay marka ID card uu sameynayso kaliya waa ku soo darsanaysaa emailku leeyahay numberkiisa sidoo kale join date-ka yani taariikhda uu yani ID card-kan la soo qaatay expire date ama taariikhda uu dhacayo sidoo kale intaas ayaa ugu muhiimsan ID card marka la sameynayo haddeer ID card-keeni sidaan ayuu noogu diyaarsan yahay kaliya sidaas ayaad iskaga habeen kartaa wixii kaloo kaa dhinaado haddeer save ayaan dhihi doonaa kadibna waxaan dhihi doonaa save as image kadibna qaybtaan ayaan soo furaynaa altra ayaan ka dhigi doonaa kadibna save to gallery ayaan dhihi doonaa haddeer waxaa noola diyaarinaya ama noola seefaya ID card-keena kadibna waxaan ka heli doonaa qaybtaani gallery mobilekeen ayaan soo galaynaa si aan u aragno ID card-keeni waa ujeediin waa ID card-keeni oo aad u qurux badan oo aad loo diyaariyey run ahaantii sidaan isaga qurux badan inaad u samaysan kartaan ayaan ogaa qaybtaan haddeer infronti waa baagna waa ka soo samayn doonaa insha allah muuqaalkan haddii aad laagtiisa kor u qaadaan sida baagga loo sameeyo ayaan ka soo hadli doonaa saaxiibayaal intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay guuleysta goor waliba